shirkan jirayd waxa uu daaran yahay inaan ka hadlo saddex qodob oo runtii muhiima oo aad moodo inay xaaladooda ka jira si adkaanayso waxa weeye horta qodob madaxweynahan leeyahay qodobna guddidan loo xil saaray coronavirus-kan leeyahay qodobna qurba joogtan leeyahay aan ku horeeyo qodobka madaxweynaha waxa la yidhi madax meel ka sareyso la salaaxa ma jirto madaxweyne sidaynu ogsoonahay dadkii waxaynu nidhi waa la karantiimeynaya caalamkana xaalad culus baa ka taagan oo coronavirus ah oo wadamada awoodda lahaa ay maanta u tamar waayeen inay la tacaalaan ay wax ka qabtaan runtii waxa weeye inagoo dawladaha waaweyn ee caalamka arkayna si iskaga joojiyeen madaaradoodii iyo xuduudii u furaa ayaad waxaad moodaa Soomaaliland inaanay fahansanayn coronavirus ku dhibaatada uu leeyahay waxa weeye xuduudaheennii baa oobina madaaradii baa oobina tamartii aynu wax ku baar lahayn ama aqoontii ama qalabkii lagu eegi lahaa uma lihin oo inta badan waxaad arkaysaa dad aan aqoon u lahayn inay hawshu xil saaran yihiin waxaan madaxweynaha ugu sheegayaa oon halkan uga bahalaynaya malaa laba iskaga khaldan baan filayaa in dadkii hal la karantiimeeyo oo qof waliba halkuu jooga caafimaadkiisa ku ilaaliyo iyo xuduudaheena waa furan yihiin laba isqabanaya maaha diyaaraddan Ethiopia anigu garan maayo hawsheedu halkay ka socoto iyo awoodda ay halkan ay ku sii leedahay waxaad moodaaba bas magaalada Hargeysa ka dhex shaqaynaya maalintii xilliga doontay soo degaysaa xilliga doontay kacaysa Ethiopia waa halka ugu halisaysan ee imaka xanuunku ku badan yahay sida inagu maqaalada ah waxaan uga digayaa oo u sheegayaa madaxweynuhu inuu halka ku noqdo oo inaga joojiyo dadka naga imanaya meesha doonta aad xuduud walba inaga soo galaya haddii xuduud u tahay iyo haddii xuduud diyaaradeed tahayba in waxa kale oo arrimaha aad kale la yaaba dad baanu karantiimeyn iyo place baanu suuq u dareena dadka ka kac iyo shaambo iyo jaafer iyo wax la isku meel lagu buufinaya iyo wixii waa obna waa furan yahay laba isqabanaya maaha marka madaxweynaha waxaan leeyahay arrinka u dhug yeelo dib ugu noqo runtii wixii ka yimaada dadkan mas'uuliyadda adiga qaadaya adiga madaxweynaha adigu amarka u sareeya ka soo gaa wixii diyaarada u watalan soo jeedin inaad naga xanibto in qodobka labaad guddidan coronavirus dib marka laga yimaado ninka wasiirka caafimaadka lixda kalaba wax aqoon u leeyahay ma jirto ولا مدحونا كحيان ولا خليل ولا مid kale ولا سليمان علي كورre ninna meel caafimaad lagu dhigtay iyo meel soo jooga midna ma jirto anigu rag soo shaqo tagay oo loo xil saaran mana warkaaw sababta doctorradii waaweynaaye dalka Hargeysa iyo caalamka joogay ee Soomaalida ahaa ninku doonaba haadaya inoo jooga toddoba nin oo aqoon u leh doctorro hawsha in nidaamkan garanaya iyo karantiimeyntii dadka qodobaso war qodob qora la soo saaray oo dadka wax loo sheegay TV qoranta soo fariisteen ma jiro goobo caafimaad oo xadhiga laga jaray ma jiro oo dadka lagu karantiimeynayo waa ninka wasiirka lixda kale isma dhaamaan waligoodna meher lagu muday ma joogo aqoon wanaagsan baan isku leenahay nin qolo rigees ka ridaya ma mudayo aqoonteeda leh ma jiro haddana waxa loo xil saaray inay cudurkan halista caalamka ka cabadiyay ay karantiimeeyaan taasina waxaan leeyahay waa arrinka maanta Soomaaliland halka dhigtay ee Soomaaliland sida caadiga u shaqayso ee goobihii la isku yimaado ee meel walba waxaan ku wari in sidii caadiga u shaqayso inay moodinba waxa la caalamka ka jira inaanay u dhugul hayn walkan ka leeyahay Soomaaliland waxaad moodaa inaanay coronavirus ka baanay fahansanay in qodob baan leeyahay qoladan qurba joogta ayagana war hadii ilaahay baana run ahaantii subxaanahu wa ta'aala arrimaha ku xilay inkastoo qof waliba aanu qadarkiisa dhaafay haddana haddii aad caafimaad qabto inta hawlahan taageen halkaaga naga joog oo hadnoo iman hadduu xanuunku ku dhacayna walaalada la soo doonan oo wadanka waxaanu ka kici kareen tamartiisa ma hayee hala iman oo ha sarayn oo qolada qurba joogga baan leeyahay waxa weeye halkaas aan ku daynay coronavirus-kan ka hadlaya colaadii ceelaf weyn ayaan doonayaa inaan iyadana wax ka idhaahdo kale run ahaantii maanta xilli colaadeed lama taagna xilli dagaal la abaabulana lama taagna waxaan u sheegayaa qolooyinka maangaabka ah axmaqiinta ah wax matarayaasha ah ee dagaalka ceel afweyn iyo colaada abaabulaya war maanta wadanku waxa xaaladaysan yahay waxa weeye xanuun dubnidii ka cabaadiyay baa jooga
iyagana waxaan u sheegayaa inay dawladdu cid walba waa la iswada og yahay inay gacan bira ku soo qabato oo si degdeg ah tallaabo sharciga waafaqsan looga qaado oo iyagana halkooda aanu hawsha qofkii ka dambeeyay iyo qofkii keenay iyo qofkii abaabulay iyo qofkii ka shaqaynayay axmaq qaaba in halkiisa loogu tago maanta maalintii la is eegan jiray ama xilli colaadeed lama taagna dadka maangaabka saas u sheegaya dadkii cilafuna waxaan leeyahay walaalaa tihiin dad wada dhashay baa tihiin abti baa isku tihiin adeer baa isku tihiin war colaadaasi dagaal wiil baa ku dhintay wiil ma dhasho halaga tanaasulo aad u mahadsantiin boqol